السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan naga daawanaysaan ajmal service dhamaan asxaabta igu xiran dhinac walba media ku soo dhawaada mar kale muuqaal cusub taariikhda muuqaalkan aan sameeynayo waa bisha 7 2023 xaafadan aan joogo oo aan rabo inaan muuqaalka idinkaga diyaariyo ana idinkaga faa'iideeyo waxa la yiraahdaa Shaakir waxayna ka tirsan tahay ceelasha biyaha Shaakir dadka qaar markay maqlaan waxa ku soo dhacaya midaan Daarusalaam laakiin ceelasha biyahana way ku taalaa shirkad ahaan hadda uguma taalo laakiin magac ahaan ugu hartay Shaakir waxay ka guurtay darbiga hadda jaalaha ah ee aad arkayseen oo dheer oo wareegsan bay deganaan jirtay darbigan magacii baa jira marka hadda shirkado kale taa degan oo isbuunyooyinka iyo joodariyaasha soo saara xaafaduna deegaan bay noqotay marka magacii baa haray laakiin ayada hadda ma degano ama Shaakir ma degano laamiga markaa ka soo leexata xaafada laamiga wuxuu u jirtaa 2 kiiloomitir waa xaafad deegaan ah biyihii iyo korontadii leh wadooyinkeedana ay jaayihiin waxay xaafadaha qaar uga duwan tahay ee laga yaabo inay ka qaalisan yihiin jidadkeedu waa jaay mootada xamarka soo qaata guriga oo ku keeni karto waxaan rabaa inaan halkaan idinka tusiyo boos iib ah cabirkiisu yaa 20 lagu dhufto 15 wadada jaaya saaran jidka marka jaay la saaro dhulka kale uu ka yara kormaraa inuu dhulka ka koreeyo muddo halkan arkaysaan ee tiinku uu ku wareegsan yahay waxa ku jira hal boos oo cabirkiisu yaa 20 lagu dhufto 15 oo iib ah meeshan waa markas darbigan wareegsan ama guriga weyn oo dhisan masaajida ku dhex yaalo waana markas diinta lagu barto xaafadan hadda shidantay deegaan noqotay markaskan markii laga dhisay kadib xaafadu maalinta ka dambeeyso way sii kaceysay qiimo ahaan guriyahana arkaysaan sidoo kale hadeertaana meesha laga dhisay way cusub yihiin markaska waxa ku yaala masaajid wax walbana waa diyaar meeshan marka waxa ku jira hal boos oo cabirkiisu yahay 20 lagu dhufto 15 guriyahan ka jeesanayo qiimihiisuna uu yahay $9,000 booska meeshan ku jira waa 9,000 wuxuu ku yaalaa ceelasha biyaha qaasatan area Shaakir ama xaafada Shaakir saa u taqaanaan xaafada laamiga wuxuu u jirtaa 2 kiiloomitir wadooyinkeeda waa jaay oo mootada xamarka soo qaada ku keeni karta gurigaaga hortiisa jidadkeeda oo dhan inta badan waa jaay xaafadu waxay leedahay suuq waxay leedahay madaaris waxay leedahay masaajid wax walba way leedahay waa deegaan dhameystiran oo aad arki kartaan mid kale Soomaaliya oo dhan baa degan qolo gooniyo mid degano waa xaafad mushakala markaskaas oo boosku dariska leeyahay waa markas masaajid uu ku dhex yaalo diinkana lagu barto xaafadan hadda ay camirantay waliba hadda waxay yeelatay suuq yar oo adeega iyo hilibka iyo wax walba laga soo doonan karo si guudna waa loo degay xaafadan wuxuu uga duunaanaysaa xaafadaha qaar laamiga kama foga 2 kiiloomitir xitaa hadda meeshan ay joogto 2 kiiloomitir inay dhan tahay uma maleynayo way ka yar tahay laamiga way u dhowdahay ta kale waxa ka caawinaya inaad gurigaaga imaado jidadkii waa jaay ah oo bacaad mootada ma ku dhahayso meel bacaad ma ay wada waa nadiif ay ku keenaysaa booskan marka wuxuu ku yaalaa xaafada Shaakir ee ceelasha biyaha dhulka marka laga faa'iideysan karo waa marka dhul deegaan uu ku socdo uu yahay oo macnaha hadaa rabtid deegaan dadka qaar oo bararsiga ama dhulka lacagaha ka rabaan kama hadlaya laakiin waxaan ka hadlayaa qofkii lacag yarna haysta rabana meel uu dego maanta 9,000 boos inta ku heshid inaad dhisatid laamiga aan aad kaaga fogeyn xaafad degan ku yaala si mushakala loo degan yahay waxa isleeyahay waa nimco laakiin waxa dareemi kara qofka ama kiro ku jira amaba meel uu qabsado aan haysanin lacag yar haysta danna meel qanciso waay oo nololka kale oo hadda 9,000 dhulka lagu helo waa dhul fog oo aad laamiga uga fog oo xaafadaha ka baxsan oo aan haduu rabo deegaan ahayn meelaha qaar xaafadan hadda waa aragtaan dukaamaha laga furay hawaday martay way kala kacday maasha Allah almuhim marka dhulkan waa dhul qofki jeeb yarna anfici kara qofki rabo bari ka maalin inuu waqti dhowr sano kadib 2 sano kadib 3 sano kadib inuu ama wadanka soo dago ama markaa kadib inuu wax dhistana
wuxuu arkayaa xaafadda intaan kasii camirantay oo meel walba laga degay. Hadda boosaska bannaan iyo kuwa dhisan waa isla egyihiin, laakiin haddii waqti la siiyo oo waqti la sugo waxaa imaanayso in la waayaba boos bannaan uu yaraado. taa marka waxaan ugu talagalay inaan idinkaga faa'iideeyo oo aad ka faa'iideysataan si qofkii lacag yar haysta iyo qofkii lacag badan haystaba loogu noqdo dhexdhexaad amaba dhulka nooc walba oo loo keeni karo. midna waan idin sheegayaa oo dadka su'aalaha aadka ah iisoo weydiiyo kamida oo ah qofku inuu ku dhaho meel biyo iyo koronto iyo deegaan ah oo 2,000 iyo 3,000 haraba. walaal haddaad muuqaaladan la socotid magaalada iyo baadiyahaba qiimahooda waa qiyaasi kartaa, waa kala fahmay laanahu anaaba ugu talagalay inaan idin fahansiiyo. laakiin haddaad muuqaalada la soconin oo lagu sheego lagu yiraahdo laguma heli karo, ha u arkin in adi lagu burinayo, in adiga in wax laga iibiyo aan la rabin ha u arkin. annaga in qof walba oo Soomaaliya qaab walbuu yahay, nooc walbuu yahay, jinsiyad walbuu leeyahay, inaan u adeegno waa shaqadeena. sidoo kale qofka customka noo ah inaan qancino ilaa xad waa shaqadeena, laakiin wixii aan macquul ahayn qofka laguma qancin karo. مثلا in ay dhahdo meel deegaan oo hadda aad degi karaa rabaa 2,000 aan wataa, way adagt ma shaqaynayso, mana keeni karo. marka waa in dee waaqiciyan qofka ama uu fakaro ama wixii markii loo sheego uu fahmo. xaqiiqatan anaa idinka jeclaan lahaa inaa 1,000 iyo 500 ku heshaan dhul deegaan ah amaba xaafad dhexdeed ku yaala. laamigu waa kan, dhulkan laamiga wuxuu u jiraa booskan qiyaastii 2 kiiloomitir ugu badnaan. marka waa wada jecelnahay inaan dhul raqiis helno, in qof walba uu ka maarmo inuu kiro kalo, laakiin xaaladda diiday ama wadciga magaalada ka jira diiday. waqtiyadan hadda iyo sanadka hadda dhamaaday waa xilliga dhulka ugu fursada badnaa oo ugu qiimaha jabnaa. qofkii ilaahay karadsiiyaa kartay oo ka faa'iideystay, qofkan garanina hadhow wajiga uu noqdo ku qaabili doonaa hadduu sii raqiiso iyo hadduu kor u kaco intaba. anigu aad baan u taageerayaa inuu dhulku qiimo ahaan hoos u dhaco si dadku ay u sinaadaan oo micnaha loo helo qof walba oo marxalad dhexe ku jiro inuu boos kadan karo. beledkii iyo baadiyihii baa isku xirmay. waxaa la marayaa marka heer meelaha korontii biyo lahayn in la iibiyo 12,000 ama 20,000 meelaha qaar. korontii biyo lahayn waxaa dhici karta inay korontadii biyihii meesha leedahay, laakiin deegaan uusan kuu dhoweyn. korontada waa soo jiidan kartaa, biyahana waa qodan kartaa, laakiin wax deegaan iyo daris iyo arxan ah intaba kuuma dhowa, waana 20,000. in marka dhulku uu qiimihiisa hoos u dhaco uu raqiis noqdo waa wada rabnaa. ha u arkinina in aniga aan idin oranayo mar aan micnaha negative-ka idin siinayo oo la heli karo wax 1,000 iyo 2,000 ah oo laamigana u dhow biyihii korontana leh. anaa idinkula soo ordi lahaa. sideedana inay fahantaan waa muhiim. qaabka aan ku shaqeeyo waa in aan helo dhul qiimaha uu maraayo ka hooseeya bis. aniga dhul walba ma soo bandhigo, dhulka qiimaha uu joogo ka hooseeyaan jeclahay inaan soo bandhigo. meelahaasaana ka qaraabtaa. waxaana raadiyaa wax fursad ah oo qof aad u baahan amaba aad u lacag yar markii loo fiiriyo dhulka dariska la ah horaan ka soo bandhigaa. marka taa aamina la socda. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah.